taliyaha qaybta 12aad ee ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed General Maxamed Cabdu Cali Sanka oo tan iyo markii uu la wareegay hogaanka taliska korbeer shaqo ku mariyay fariismaha ciidamada ayaa socdaalkiisa ku soo gunaanaday dugsiga Harqaboobe ee Gurceel oo kamid ah xeryaha tababarada qaybta 12aad oo ay ku jiraan ciidamo in muddo ahba u socday tababar sare oo lagu barayay xeelada dagaalka si loogu diyaar garoobo howlgallada lagu xoreynayo deegaanada ay al-shabaab kaga dhuumaaleystaan Galmudug. saraakiisha dugsiga Harqaboobe ayaa warbixino ka siiyay taliyaha qaybta xaaladaha ciidamada ku jira xeradan iyagoo tilmaamay in lagu guuleystay ka soo gudbidda marxalada adag oo ciidamadan lagu diyaarinayay haatan la joogo waqtigii looga faa'iideysan lahaa tababarada sare ee ay qaateen. taliyaha qaybta 12aad General Sanka ayaa ciidamada dugsigan ku jira iyo saraakiishooda u jeediyay khudbad dhinacyo badan oo kaga hadlay waxaana uu ku amaanay dhabar adeega ay muujiyeen xilliga dheer ee tababarku u socday isagoo ballan qaaday in loo dhameystiray agabkooda si looga faa'iideysto aqoonta ciidan iyo wadaniyada lagu carbiyay. waxaan rajaynayaa dugsigan wuxuu ka mid yahay warshadaha dalka ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. waqti dheer waxaa ku jiray ciidan maanta ah isyaano oo ka mid ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ka baxay dhibowgii. ciidankan waxa u dhiman waa in aan u keeno hubkiisi oo la hubeeyo. laakiin wax kale oo u haray ciidankan ma jiro. wax kasta oo xuquuqa oo ciidanka qalabka sido ama ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu leeyahay qayb uu ka yahay waana leeyahay. ciidankiina sharafta leh iyo ciidanka ammaanka iyo madaxda dugsiga iyo macallimiinta sharafta leh oo ciidanka soo tababartay waxa la inkaga baahan yahay oo waajibaadka idin saaran waxa waaye in la ilaaliyo wadajirkii iyo in la ilaaliyo haybadii qaran oo ciidan in la ilaaliyo waxa keeni karo dhibaatada ama ciidanka u keeni kara kala faquuqa ama ciidanka ku abuuri karo kala tagga iyo dhibka arintaas meesha inay ka baxdo weeye ujeedada munaasabadan maanta dugsiga Harqaboobe. waxaan rabaa oo ninka codsanayaa insha Allah bidnillaahi kariim inaa u diyaar garowdaan meesha hadda aan ugu imid qaybta oo aad soo gaarsiiseen inaan si xawli ah hadduu Ilaahay idmo uga dhaqaaqno si mar dhow loo gaaro deegaamo badan oo nabadiidku in la xoreeyo yoolkeena koowaadna wuxuu noqon doonaa ceelbuur hadduu Ilaahay idmo. taliyaha qaybta 12aad General Sanka oo ay weheliyaan saraakiil sare oo kamid yahay xeeraryaha maxkamadda ciidamada qaybta 12aad gaashaan la sarakeyse ayaa sidoo kale askarta dugsiga Harqaboobe kala qayb galay bandhig suugaaneed si heer sare ah ay u soo abaabuleen kooxda fanka horseed ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed qaybtooda 12aad waxaana tan iyo markii qaybta 12aad loo soo magacaabay taliskan cusub uu waday dadaal dib loogu xoojinayo howlgallada socda iyo diyaarinta ciidamada kuwaasi oo dhammaantood u muuqda kuwa si dhab ah loo dhaqaajiyay muddo kooban gudahood. ciidan qaran ayaanahay callan sidee ayaanahay cawase xambaanahay miskiin caawiyaanahay. Cabdullaahi Warsumro warbaahinta qaranka Dhuuso Marheeb.